tolka ciise weyne great nation waa idin soo salaamaya meel kasta oo dunida joogtaanba. kelmad waxaan odhan lahaa kuwa loo yaraa oo idhi buuggii baan akhrinay oo maalin meel soo fadhiya oo le qodobo qaladaanu ka helay. marka hore waa inaad loo yaro wax taqaanaa markaad akhriyayso. buuggani ciisaa samaystay 1400 baa la sameeyey 600 sano horteed ka badan iyo ciise qorteen. dunida loo geeyay sharcigani duduna waa abruuf gareysay. reer baa qorta oo iska leh iyagaa isku dhaqaya. adiga kuma khuseeyo, cidi kuu keeni mayso, lagugu qasbi maayo. sabab alla sabab u akhridaan anu ma garanayo buuggan inaad u akhridaan waayo shaqaba kuma lihidin yaa idin geliya idinka. edeb darro weeyaan aad buuggayga akhridaan waxay noqonaysaa uun xaasidnimo. waxaad ka sheekaynaysaan caynkanu yahay iyo caynkanu yahay iyo waxaana ka hadlaysaan. cid ku weydiisaba ma jiro. soddonka qur-aanka ayaan aqaanaa waxa badi dhaafisay kaaba akhrisan maayo. buuggan inaad qaadato marka hore oo soo akhrido ayana edeb darra ah yaaba edeb darra waayo kuma khuseeyo adiga. waxaan ku khuseyn baad meel intaad la fadhiisatay soo akhriday ood leedahay waan soo akhriyo yaa adiga akhri ku yidhi yaa kaa dhegaysanaya maxaa kuu geeyey. buuggan cilmi baa lagu qoray, caqli baa lagu qoray, aqoon baa lagu qoray, garashaa lagu qoray, garaad baa lagu qoray. dad isku tagay oo caqli le baa qoray oo odayaal hore ah. dad markaa soomaali inoo jirima dadku way qaawanayeen xataa hadday jireen waa stone agekii waxa la qoray. marka stone ageka la yidhaha dadku ay qaawanaayeen ayay yidhahdeen dadkani sharci baan samaysanayna. marka dadkan garaadkooda iyo IQ-googii markaad egtaan baad doonaysaa inaad xaasidnimo xagga dambe wax kaga qorqortaan oo tirahdaan caynkan wey, kii kale wey, kan kale wey. adiga maxaa kaa galay? rag baa leh oo qortay oo halkaa buurta dusheeda dhigay oo meel dhigay oo dunida u geeyey oo dhaqaale ku bixiyey oo soo abruuf garay. adiga maxaa kaa khusaya? edab darroon weeye ninka intuu buuggaagii akhriyo yidhaa intaa qodob baan ka helay iyo intaasoo namar baan ka helay oo adiga yaa kuu dirtay. gaaska afraad baa lagu dhigi jiraa malayn carabiga man dakhala fii maa laa yacnihi laqiya maa laa yurdihi. waxaan waxba kaa gelin lama akhriyo looma dhawaado. marka horeba waa edab darro waxa buuggayga idiin geysay. waa edab darro waxaad uga hadashaan. waa xaasidnimo wixii aad xumaantiisa u raadisaan buuggayga intaad rogrogtaan ee alla halkaasi wax ku qoraya xumaan bay noqonaysaa. waa xaasidnimo, waa horumar quuriwaa. waxaad ka xuntihiin horumarkayaga iyo standardkayga halka nolosheedu marayso. ciise halka uu taagan yahay oo jabbatariya maarisa oona soomaaliba tegi karin baad ka xuntihiin. waxaa kaloon rabay inaan midku idhaahdo hooye iyo aabba waa isku mid. aniga hooyada iyo aabbaha isku ka mid wey. haddii aabbahay laga gardaran yahay waan ka hadlaa, haddii hooyada laga qaldan yahayna waan ka hadli. waa qasab labada way dhaleen. waxaan arkayaa reerkii hooyaday ka dhalatay oo indhala-aan socda iminka maalmahan. marka waxaan ma aqoon-yahankoodii awo cilmiga may xafidsanaayeen dadkoogi wax garanayeen dheer garadkii meel ay marayn waan garan waaye. saylac way mudaharaadayaan. saylac way mudaharaadayaanoo magaaladoodii caasimadii gadabursi meel kasta oo dunida joogo uu isku yimid ayay leeyihiin waan ku dhex mudaharaadayna oo iska burburinayaan oo habeenkii ku dhex mudaharaadayn dhagax tuuraya. waa magaaladoodii. maxaa loo dhagax tuuraya magaalada? saylac baa loo dhagax tuuraya. caasimadoodii bay iska duminayaan. marka waxaan leeyahay war caasimadda iska duminina. saylac baad u burburinaysaan boorama. waxaas max shaqaynaya maaha. caqli baa loo baahan yahay. dad public enemy qolo la yidhahdaa jirta. waa kuwan tiktokerska oo public enemy bay noqonayaan. halis ba u yihiin dadka. hadday dadka hogaamiyaan waa halis. waxay halis u yihiin in barnaamijkan aan ku hadlayo amba iyagu ku hadlayaan telefoonadani. waxaan barnaamijkan inta social mediaha waxaa la yidhaha virtualkuna waa waxaan saxayn waa khayaali adoo hurdow. waxaa lagu odhanayaa iska jir waxaan runa u qaadan. adigoo halkan joogaan iminka Donald Trump baan uma hanjabi karo laakiin waa khayaali, waa riyoonaya. marka baalkii Facebook ay ka hadlayeen amba TikTokii bay run u haystaan. soo kaca dadkoodii bay kicinayaan. ha dagaalama magaaladoodii waxay ku dhex dagaalamayaan. cid ay la dagaalamayna lama garan karo. way soo kicinayaan. mudaharaada waa magaaladoodii waxaa lagu mudaharaadana wax jabiya saasa la leeyahay. caqligii dama jiro shaqaynaya markaas. dadkani waa tiktokers, waa public enemy.
iyagaa dadka kicinaya haddii abtiyo laga qabtado oo laga xereeyo kuwaana berri odayaal baa dibadda usoo baxaya macawisisida waxay odhanayaan haddii la soo dayn waayo 24 saacadood baanu qabanay dadkan waa public enemy bay idinku yihiin waa halis bay idinku yihiin jiritaankiina iyo magaaladiina Boorama iyo horumarkiinaba public enemy baa la yiraahdaa ninka meesha madaxda ka ahi waa inuu qabto uu dadka ka dhex qabto uu dadka ka dhex saaro waayo waxay kugu hogaaminayaan halis public enemy ku yihiin halis bay ku yihiin halis bay ku hogaaminayaan carruurtii iyo dumarkii iyo kuwa emotionalka ah iska yaacawn marka wax loo sheego dhagax bay tuurayaan lama control karayo iyaguna halkan u joogeen waxay leeyihiin qarannimadeeni dagaalamayna oo qoryaha qaadanayna public enemy baa la yiraahdaa halis weey marka kuwa soo meedan baa jira oo Boorama jira kan ka qabtana waxba u taraya ee ka xidhay waxba u taraya laakiin odayaashii shacabka bari ka daba tagay waxay hadii la noo soo dayni waayo hablihii la xidhay iyo namada la xidhay leeyihiin halisna way ku yihiin public enemy sharciga dhigayo wuxuu haduu halis ku yahay dadka wada noolaashaha horumarka iyo jiritaanka ummadda haduu halis ku yahay waa laga qabtaa public enemy baa la yiraahdaa ninkan meesha jooga ee maxaa la yiraahdaa barasaabku waa sharci wuxuu ku shaqeynayaa sharci baa qabanay meesha dawlad baa ka jirta sharci baa ka jira nidaam baa ka jira kala dambeyn baa jirta laakiin public enemy-gu waxa kama shaqeeyo waa kuwaas oo kale weeyaan marka abtiina waxaan leeyahay war halis baad ku jirtaano dhalinyaro idin hogaaminaysa tiktoker meesha lagu dhaana waa meel virtual kana waxaan run ahayn run maaha waa khayaali laakiin waa lagu madadaaloon karaya wixii la sheego yani waxa fiican waa la isku sheegi karaya laakiin waxa dhibaato ah problem kana oo lagu sheegi karaya iska jira leeyahay waa public waxa la yiraahdaa virtual marka abtiyo maanta iyagoo intaas oo professor iyo jaamici wada inay public enemy hogaamiyaan dad khatar ku ah nolosha bini aadanka halis ku ah nolosha bini aadanka meel walba way jiraan waa la xidhayaa waa laga daba tagay waa la soo daynayaa haddana sidee halkiiba ka bilaabayaan waan dagaalamayna qori soo qaata maxay soo qaata waa inaan mudaharaadna halkee laga mudaharaadaya Boorama meel kale laga mudaharaadayo saylac baa loo mudaharaadaya aqri baan hadda meesha ka shaqeynay marka waxaan isdaanigu hooyadayna waa iyaabahay waa isku mid waxa haddayna meeshan aqoontii ka muuqan oo tii jirtayna ay ahayd waxa la malaha waxay xafideen un been cilmigu meesha waa yaala laakiin waxa xafidsan yihiin oo practical looga shaqeeyaan sidii waayo way hadli lahayn aqoonyahanku intay soo baxan bay hadli lahayn war waxaan ma shaqeynayaan waxaan waa virtual waa khayaali sidana waa public enemy carruurteena dibadda loo soo saariyo dumarkeena iyo haweenkeena in laga ohaysiyo laga qeyraysiyo waxa badda qaataan guryahooda dumiyaan aqaladooda halkan aad ku mudaharaadayso isaaqna male ciisana male adiga waa magaaladaadii isku burburinaysa adiga halis naftiini baad halis ku tiin marka kuwa in iska qabtaan oo wixii the reality ah ee muuqda aad samaysaan baad leedinka baahan yahay oo nolosha magaaladiini iyo noloshiin qabiilkiina aad horoob marisaan sababta daaniga hooyada iyo aabahay labadaba xaq bay ugu leeyihiin hooyadayna inuu hadlana waa sax aniga waxay dhalay reer kale reer maxamed baa dhalay naas caana badan oo caqli badan oo cilmi badan ku jiro ayaan cabay waad aragtaan marka abtiyaashana waan salaamaya waxaan leeyahay magaaladiina ha iska dumineen waxaanad wadaari wax shaqeynaya ma ba dhowr qof oo tiktoker ay hor kacaya tiktokers waa dadkan idin sheegaya virtual waa la yiraahdaa waa khayaali waa programka lagu hadlayaa magaciisa la yiraahdo waa khayaali ay ku dagaalamayaan qaar baan qoriyo la soo baxay oo isku soo sawirayo jabhad baan sameeyay xagee jabhad markaa sameynayso waa marka hore la qiyaasay evaluation lagu sameeyaa jabhad hadda sameeyso ma guuleysan doontaa intaasoo qof markay dhimato maad guuleysan mise weli waa qasaaro baad ku jiraysaa waa la qiyaasaa marka hore laakiin afar qordibada hadoo la baxday barta yulbi loser baa tool soo qabanaya ama reerkiina ku bariyay dawlad koriyaad qaadatay qolaas tusaysa laakiin hada ma shaqeynayso waxaas ma awoodi kartid inaad jabhad intaad ka samayso Boorama aad dagaal ku soo qaado de Boorama baad ku soo qaado waa magaaladaada Boorama isaaq waa hoos bixi karayso haba yaraatay oo ma soo jabhadan kartid cid kalena ku soo raacin mayso hadday noqoto in lagu duulo de anaguna diyaar baana oo ma ogolin in maamulka dhisan lagu duulo oo joogna marka jabhad galayso waa inaad saaxiib leedahay waa saaxiib waa inaad leedahay adoo min saaxiib oo cid ba saaxiib lahayn oo cidna ku taageeraysa aan diin jabhad baan sameynaya
kuwa qoryaha qaatay dibadda u baxay ee tiktokerska dadkooga uunbay dhibayaan halkaasay dee ka hadlayaan waa gunnimo waxaan ku jirnaa waa gunnimo waa inaad kacdaan waa inaad dagaalantaan waa inaad iska kixisaan waa inaad ninkan ka saartaan isaga magaaladeenna intaas odhanaya intaasay ka soo hadlayaan dee dadkani waa inay ka koraan waxaan waa inaad ka kortaan waxani waa laydin baabiinaya markaa dhibaataa meesha taalla waa tiktokers baa dadkii hogaaminaya marka la xidhanayo waa odayaashii baa taaganba cimaamada shitaan iyo maqadado iyo ubaakoorada istaan haddii la soo dayni waayo ha la soo daayo halis bay kugu yihiin adiga halis kugu yihiin jiritaankiinay halis ku yihiin qolada tiktokerska halis bay idinku yihiin jiritaanka magaalada Boorama ayay hadday doonaan khatar gelin karaya odhan kaale waan dagaalamaynaa ee soo baxa oo wala soo qaatay qoryo soo qaata shicibka iyo dumarka iyo carruurtuna waa emotion way qaadanayaan way ooyayaan markay dee waxa u qododeeyaan waana khayaali marka waxaan odhan lahaa ha iska dubinina magaaladiinana ha uga mudaharadan magaalo kale oo warba idinka hay baad uga mudaharaadaysa waxaani wax shaqaynaya maaha abtiyaasha intaasaan dee iyaga ku dari lahaa sababto ah hooyo iyo aabbo xaq bay labadu kugu leeyihiin marka qaladkaasaan arkaya iminka Boorama ku dhaqmayaan qaarna waxay odayaashiina shir bay ugu jiraan xeerkay ciisaha ayay shir ugu jiraan shiraan dhammaanayn waa aniga xalay idiin sheegaya shiraan dhammaanayn iyo waxaan iyaga waxba ka qosay waxba kama qosayaan cidi wax kaa weydiin mayso meesha hadday dowladda ka jirto dowlad baa la weydiiyaa meel shicib maamulaa dunida ma jirto waa disorder waa jabhad weeye haddayna dowladda jirin oo inay kala dambayni jirin markaa jabhad bay noqonaysaa xoog in la isku boqooniyay noqonaysaa laakiin maamulkaa jira ayaa lagala hadlaya laakiin qabiil lagala hadli maayo qabiil lagala hadli maayo sharciga beesha ciise dhaqankooga iyagaa iska leh ku Boorama joogana ma khusayso kan Hargeysa joogana ma khusayso waayo shaqada kuma lihi adiga iyo akhri ku yidhi yaa idin diray idinka soo akhriyo xeerka ciisaha soo akhriya idinku yidhi oo evaluation ka bixiya oo edeb darro unbaa idin geynaysa waayo waxaan shaqada kuma lihi annagaa qoran xeerka annagaa timahayga dhankana u xirayna xeerka inoogu taallaa adiga maxaa kaa khusay shaqaba kuma lihid buugaygana kuma taalid sharcigaygana kuma taalid maxaa idin geliyay idinka markaas maxaad xumaanta u raadinaysaan meel xuma ka eegaysaan xeerkayga ha ka eeginina xeer reer wax qoraa oo caqli leh oo aqoon leh oo garaad leh oo garasho leh oo markay dadku qaawalaayeen fikirayay baa samaystay waxani oo dunidu way la yaaban tahay kuwii akhriyey ayaa ilaa hadda yaaban oo la dadka soo intelligentka ah ee talentka ah halkee kaga nool yihiin Africa isweydiinayaan 196 dowladood baa isku raacay oo shahaadad ku bixiyey oo daawanaysay way la yaaban yihiin dadka sidaa wax u qorayay intelligent dadku xam ayna qori jirin sharciga intaa leeg samaystay intaasoo buugaad aragteen samaystay inta xaashiyadood leh dunidii baa la yaaban idinkana xaasidnimaad ku bilaabaysa wax la xasti karaa jira wax laga hor tagi karaa jira cilmi la xasti karo wax laga sheegi karo waa laga munaaqashoon karaa jira waa concrete waxaan oo wax dhan walba laga saxay concrete weeyaan waa sharci concrete oo la taaban karo oo la soo habeeyay la soo qurxiyay oo dibadda la soo dhigo dunida loo geeyo dunidana ogolaata idinkuna waad wareersantiin marka inta sharciga ka hadlaysa Boorama waad ka mudaharaadaysaa Boorama waa ka mudaharaadi oo magaalada iska duwinayso ilaa mudaharaadi magaaladina hadubinimo haweenka soo bixina waa magaaladina caasimadina aad ku nooleedeen kaliya lahaydeen hadubinina waxa ku hogaaminayna dumarkii carruurteeda soo baxaan dadka dhagaxyayaan madax wax ku xidhaan waan dhimanaynaa ilaadan for no reason ya marka public enemy weeyaan kuwa waxa sameynaya waa tiktokers marka haddii la idinka qabto kuwa idin waalaya idin ka hor imaanaya idin baabiinaya waxay ka qaban karaan ay jirin iminkana dabadda jooga qoryaha qaateen dhowr iyaga ka mid ah kuwa tiktokers meelaha inta joogaan guun baa la noqonaya haddii la dagaalami waayo xagee aad ku dagaalami backup ma haysatid dalku ku taageeraya ma jiro ciise ku taageeri maayo ogaadeenna ku taageeri maayo somalilandna warkeeda badaa marka haddaad jabad samayso jabadaas inay khasaarayso ogow baaba baad ku dambaynaysaa jabhad haddaad samayso in lagu baryo noqonaysa isaaqi oo lagu baryo oo la yidhaahdo cafiya iska cafiya way qaldameen iska cafiya la yidhaahdo ayaa imanaysa aad baan idin salaamaya